muuqaalkii ugu dambeeyay fanaanka Cumar Barbar wuxuu sheegay hadii laga waayay qadka fanaankan in laga taqalusay fanaankan maalmii ugu dambeeyay walwal ka muujinayay markii uu tagay dalka Norway kaasoo xadooyin badan la kulmay kaasoo asagoo walwalsan dhidaayo yacni walwalkiisa dadka live ka daawana dareemayeen rafaad ka muuqdo dhibaatada uu tabanayo dad ka sheeganayo iyo sidoo kale dadka daba socday markaas oo isku dayay fanaankan inay la hadlaan ama meel geeyaan kaasoo qorraxda kuleelka ku socday والله وين دالي داي واي سو ويرتن si kasta ay soo weerteen wataas ayaa guriga ku noqo inaad guriga ku noqo fanaanka Soomaaliyeed markii la keenay meel guri lagu soo xiray walwal kale ayaa dhashay isagoo iska hadlay si kastana u hadlay waxyaabo asaga lid u ah sidoo kale diinta lid ah dadka Soomaaliyeed ku hadlay dad badan ayaa waxay u fasirteen fanaankan inuu diin la galay dad shayaadiin fanaankan walwalkiisa murugadiisa waxyaabaha u dhaxayo dadka Soomaaliyeed qaarkood si caadi ah ay u qaateen dadka caqliga u saaxiibka ahna sidoo kale waxay u qaateen in fanaankan uu ku jiro dhibaato la sixray la ilaysay marka waxyaabaha uu ka hadlayo kale in aan loo qaban sheekh ayaa ka hadlay kaasoo caawiyay fanaanin badan oo sida Cumar Barbar ahaayeen wuxuuna u rajeynaa Cumar Barbar sidoo kale asagana caafimaad walaalihii hadda aan idin sheegay kubada ugu caansan Soomaalida kamid ahaa isla symptomskan iyo calaamadahan uu wiilkan uu dareemay markay yimaadeen cabsi wal idilaya meel bay ku xirnay waa la waday markaan muddo quraanka wadna Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa caafiyay waxa aan leeyahay dadka noocan oo kala ay mataqaanay hawlahan ku jira xir ma samaystaan adkaarna kuma jiro qafladna way ku jiraan cadow iyo gaalay iyo dad mataqaanay xaasidiina iyo suxarane dhaxday ugu jiraan iyagana difaac ma laha waxaan leeyahay walaalaha kale ee heesaha ku jira ka toobadkeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noqda kana taxadara insha Allah ta'ala midda walwalka dhalisa ayaa ah in fanaankan baasaboorkiisa laga jeexjeexay sidoo kale sida uu sheegay in uu la xiriiray safaaradda Canada ilaa hadda jawaab laga maxayo dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxay sameeyeen inay baaq diraan kuwaasoo commentiga u galay dad badan oo caan ka ah adduunka warar badan soo tabiya kuwaasoo malaayiin heesta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa qoreen firiyo Cumar Barbar qisadiisa soo qaado u soo bandhigeen u fasireen marka dhalinyaro badan soo qaateen qisadii Cumar Barbar hadda adduunku indhaha ayay ku hayaan Cumar Barbar iyo xaalad uu Omar Barbar still needs our help, guys. We got to get this man home. Our Somali brother needs our help urgently. He's been kidnapped in Norway. They ripped Omar's passport and he said they're gonna try end him on the 29th, which is today. Cumar Barbar sida ognahay waxa uu maadan walaashiisa waliba soo booqatay ayadoo murugaysan muuqaalka ayuu ka duubayay wiilka marka Soomaaliyeed waxa uu rajaynayaa caafimaad Ilaahay caafiyo